kulanti wacan daawadeel ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida waa 18 bisha 6 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah abwaanka caanka ee Cabdilaahi Ciise Sangub oo ku geeriyooday Itoobiya taariikh nololeedkiisa ayaan idin soo gudbin doonaa iyo howlihii ugu muhiimsanaa ee uu dalka u soo qabtay madaxda ugu sareysa dalka oo ka hadlay kana tacsiyadeeyay geerida abwaanka caanka ee Sangub warka soo baxay wasaaradda amniga oo loogu digay qaar kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo siyaasadeynaya howlgallada ciidamada amniga taliyaha guud ee ciidanka Amisom oo tagay deegaanka Bariire iyo qorshe halis ku ah Al-Shabaab oo ka socda deegaankaasi Jubbaland oo war ka soo saartay dilkii nabadoon Cabdiqaadir Xalay loogu geystay magaalada Kismaayo iyo shirqool ay wada madaxtooyada Jubbaland oo laga digay iyo Kenya oo soo bandhigtay shirkad si gaar ah kaga dambaysa xiisada kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya intaasi daawadyaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan abwaanka caanka ah ee Cabdilaahi Ciise Sangub ayaa ku geeriyooday Itoobiya waxaa maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya isbitaal ku yaala magaaladaasi ku geeriyooday abwaankii Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub abwaanka ayaa waxa la sheegay in maalmihii la soo dhaafay ku xanuunsanayay gudaha magaalada Addis Ababa isla markaana saaki uu geeriyooday xanuunkaasi hayay taariikh nololeedka Allah u naxariiso abwaan Sangub haddaan wax ka taataabano abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub wuxuu kamid ahaa abwaanadii ugu horeeyay ee halabuurka Soomaalida waana nin dad badan ku xasuusan doonaan kaalintii uu ka soo qaatay kobcinta fanka Soomaalida taariikh faneedka Sangub Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub wuxuu ku dhashay baadiyaha magaalada Dhagaxbuur dhulka ismaamulka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sanadkii 1944 halkaas uu ku barbaaray Sangub markii daadiisu 5 sano jir gaartay ayuu ku bilaabmay u hilowga fanka dhalinyaronimadiisu wuxuu ku soo caanbaxay ciyaaraha dhaqanka gaar ahaan ciyaarta dhaantada oo ah mid markuu gacanta u qaado aan cidina uga dabadii yeerin ka sokow dhinaca ciyaaraha dhaqanka Sangub waxa uu ahaa gabya ka hidda qaba qoysas kala duwan wada gabya aabihii abtiyaashi iyo walaalihii intuba way gabyi jireen waqtigii hore ma jirin waxbarasho jaamacadeed iskuulana dalku ay ku yaraayeen sida daraadeed Sangub waxa uu ku dadaalay inuu barto Qur'aanka Kariimka abwaan Sangub markii uu barbaar noqday ayuu yimid magaalada Hargeysa sanadkii 1961 waxa uu tagay idaacadda radio Hargeysa kadib markii uu ka helay shaqo aan rasmi ahayn magaalada Hargeysa ayuu waxa uu wareegay magaalada Muqdisho sanadkii 1961 halkaas uu imtixaan u galay isaga iyo 22 qof oo kale sidaas ayuuna kaga shaqo galay idaacadda radio Muqdisho abwaanka waxa uu noqday mid halis ku ah sameynta riwaayadaha xiisaha leh guud ahaan riwaayadihiisu waxay u qaybsan yihiin wadani jacayl iyo kuwa falsafad ku dhisan riwaayadii ugu horeysay uu sameeyay waxa la odhan jiray naga guur waxaana ay ahayd mid wadani oo ugu talagalay gumaysiga Ingiriiska oo waqtiga Afrika inteeda badan xukumi jiray sanadkii 1964 ayuu sameeyay riwaayad la oran jiray lamood noqon sawaydi abwaan Sangub halkaasi kaga maharin abuurista riwaayadaha waxa uu xoojiyay mu'alifnimadiisa sanadkii 1966 waxa uu sameeyay riwaayada caanka ah ee Yaxaas Dhiga Duub abwaan Sangub mar la weydiiyay cidda ku dhiirigelisay sameynta riwaayadahaasi waxa uu yiri mu'alifiinta qaar baqayla ah oo aan sheegin cidii soo gacan qabatay anigu sidaa ma ahi oo waan sheegaya waayo cidina kuma soo dhalan ayuu yiri riwaayadaha waxa igu dhiirigeliyay Cismaan Aadan Cismaan Askari oo isagu aan iga harin ilaa aan ka sameeyay riwaayadihii lamood noqon sawaydi iyo naga guur iyo kuwa kale oo badan Allah u naxariisay abwaan Sangub ayaa sidaas yiri dhinaca kalena isla arimihii geerida abwaan Sangub ayna ku guda jirnaayeen madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa ka hadlay kana tacsiyadeeyay geeridii abwaanka caanka ee Sangub oo ku geeriyooday dalka Itoobiya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa u tacsiyadeeyay qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub oo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan murugada iyo tiiraanyada qaybsanayna dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise waxa uu ahaa abwaan iyo jilaa Soomaaliyeed oo qayb libaax leh ka qaatay kobaca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed abwaanku waxa uu sidoo kale noqday askari ka tirsan ciidanka xoogga
oo naftiisa u huray difaaca qarannimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Abwaan Sangub waxaa lagu xasuustaa riwaayadihii iyo heesihii wadaniga ahaa ee uu sameeyay kuwaas oo ku wacyigelin jiray shacabka Soomaaliyeed. Madaxweyne Farmaajo ayaa eebba uga baryay marxuumka si janno ka waraabiyo qoyskiisa iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed uu ka geeriyooday samir iyo iimaan eebba ka siiyo. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii saaki ku timid abwaankii Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub oo ku dhintay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Ra'iisul wasaare Khayre ayaa waxa uu tacsiid tiiraanyale u diray ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub isla markaana xusay inuu ahaa abwaan qaran. sidoo kale waxa uu alla uga baryay inuu naxariista janno ka waraabiyo abwaanka Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub. waxaan tacsiid tiiraanyale u diray ummadda Soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay abwaan Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub waxauna astaan u ahaa wadaniyada. waxaan alla uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo iyo yiri Xasan Cali Khayre. abwaanka Soomaaliyeed ee Maxamuud Cabdilaahi Ciise Sangub ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanayay waxaana markii ugu dambeysay uu ku jiray isbitaal ku yaala dalka Itoobiya. geesta kalena war ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa looga digay qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay siyaasadeeyaan howlgallada ciidamada. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in markii dhibaatooyin kala duwan ay ka dhaceen Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka ay ku farxaan cadowga dadka Soomaaliyeed. waxa uu sheegay in xilliyadaasi ay dhacdooyinkaasi dhacaan la arko dad siyaasadeynaya hase yeeshee aan la arkayn kuwa ka hadlaya horumarka ay sameysay dowladda federaalka Soomaaliya. waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan yaan amniga la siyaasadeyn. amniga siyaasad ma galo. cadowga marka uu dhibaato geysto waa la siyaasadeynaya markii horumar la gaarana ma arkaysid cid ka hadlaysa ayuu yiri wasiir Islow. sidoo kale wasiir Islow waxa uu sheegay in wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhan aysan xirneen hase yeeshee wadooyin kooban oo amniga laga sugayo kaliya la xiray halkaas oo ciidamada amniga howlo baaritaan ay ka wadaan. taliyaha guud ee ciidanka Amisom ayaa tagay deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasina ka wada qorshe ka dhan Al-Shabaab. taliyaha guud ee ciidamada Amisom ee Soomaaliya General Kaabu Yelma oo iyo saraakiil kale ayaa booqashaan horey loo shaacin waxay ku tageen deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo koodii bishii May ee sanadkan ciidanka dawladda ay kala wareegeen Al-Shabaab. booqashada ayaa ahayd mid taliyaha guud iyo saraakiisha la socotay ay ku qiimeynayeen sida ay u wada shaqeeyaan ciidamada Amisom iyo kuwa dowladda federaalka ee ku wada sugan deegaanka Bariire. taliyaha guud ee ciidamada Amisom ayaa kulan gaar ah waxa uu la qaatay taliyayaasha Amisom iyo kuwa xoogga dalka ee aaga Bariire isagoo kala hadlay sidii ay uga feejignaan lahaayeen weerarada Al-Shabaab iyo sidii ay u xoojin lahaayeen la dhaqanka bulshada deegaanka Bariire. sidoo kale taliyaha ayaa saraakiisha Amisom iyo kuwa xoogga dalka ee aaga Bariire kula dardaarmay inay xoojiyaan wada shaqaynta kala dhaxaysa shacabka ku nool deegaanka isla markaana adkeeyaan sugidda dhinaca amniga. ciidamada Amisom ee jooga dalka Soomaaliya ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka caawinaya dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga xarumaha muhiimka ee dawladda. Jubbaland ayaa war ka soo saartay dilkii nabadoon Cabdiqaadir xalay loogu geystay Kismaayo iyadoo dhanka kalena siyaasiyiinta isbedel doonka ay ka digeen shirqool ay wada madaxtooyada Soomaaliya. waxaa soo badanaya dilalka qorsheysan ee magaalada Kismaayo loogu geysanaya dadka waxgalka ah gaar ahaan waxgaradka iyo mas'uuliyiinta isbedel doonka ee ka horjeeda nidaamka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. lama yaqaan kooxaha dilalka geysanaya balse hay'adaha ammaanka ee Jubbaland ayaa ku eedeeyay inay yihiin kooxaha nabadiidka oo ay kala jeedaan ururka Al-Shabaab oo lagu yaqaan dilalka qorsheysan ee loo geysanaya dadka indhaha u ah bulshada gacanta kula jira nidaam aan midkooda ahayn. balse taasi bedelkeeda waxaa qaba Cabdirasaaq Maxamed Cabdi oo kamid ah aqoon-yahanada ka soo jeeda deegaanada Jubbaland kana mid ah dadka isbedel doonka ee ka horjeeda si jaritaanka maamulka Axmed Madoobe. waxaana uu sheegay in dilalka qorsheysan iyo shirqoolada la maleego uu ka dambeeyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo mar kale damacsan inuu ku soo laabto kursiga madaxtooyada Jubbaland. Jubbaland waxa ku soo foolay doorashada madaxweynaha oo loo mudeeyay inay ku dhacdo 15 bisha 8aad ee sanadkan 2019 waxaana musharaxiinta u tartamaysa kursiga madaxweynaha ka cabsi qabaan in doorashada waqtigeeda ku dhici weyso oo muddo kororsi uu sameeyo hogaamiye Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. magaalada Kismaayo waxa ka dhacay falal amni daro oo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo la doonay in lagu qaarijiyo qaar kamid ah musharaxiinta la tartamaya Axmed Madoobe oo olole ka wada magaalada Kismaayo. xalay oo ugu dambeysay waxa magaalada
magaalada Kismaayo lagu dilay nabadoon caan ah oo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Ibraahim Xasan oo kamid ah nabadoonada isbedel doonka ahaa kaas oo kooxo bastoolada ku hubeysan ay qaarijeen xilli uu salaada maghrib ka soo baxay sidoo kale xildhibaan musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig ayaa dabayaaqadii bishii May ee sanadkan meel ku dhow dhabarka dambe ee gurigiisa laga helay qarax miino kaas oo ku sheegay mid lagu doonayay in lagu qaarijiyo waxa uu tilmaamay in isku daygaasi dil ee uu ka badbaadiyay uu ka dambeeyay taliyaha ciidanka ilaalada madaxtooyada Jubbaland waxaana uu hadalkiisa intaa ku daray in qarax uu hore u sii qaatay sargaalkan uu gaarigiisa ku ritay dhammaan falalkaasi waxaa dusha loo saaray Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha Jubbaland inkastoo uu cambaareeyay falkii xalay lagu dilay nabadoon Ibraahim oo si weyn looga yaqaanay deegaanada Jubbaland ugu dambeyntiina Kenya ayaa soo bandhigtay shirkad si gaar ah kaga dambeysa xiisada kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya dawladda Kenya ayaa mar kale eedeyn u jeedisay dawladda Norway iyo shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalkaasi mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya ayaa shaaciyay in shirkad laga leeyahay Norway ay si toos ah kaga dambeyso xiisada u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya waxaana shirkadaasi la sheegay inay ka dhex shaqeynayso madaxda labada dhinac wargeyska The Daily Nation ayaa baahiyay in dawladda Kenya aysan ku faraxsaneen habdhaqanka dawladda Norway maadaama ay sheegeen inay ka dhex shaqeynayso labada dawladood ee Kenya iyo Soomaaliya shirkad magaceeda lagu sheegay DNO oo laga leeyahay dalka Norway ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeyso xiisada u dhaxaysa labada dhinac waxaana lagu eedeeyay shirkadda inay doonayso shidaal laga helay badda Kenya muranka gelisay waxa uu sheegay inay Soomaaliya ruqsad uga haysatay inay shidaal ka baarto halka ay ku muransan yihiin labada dal dawladda Kenya waxa intaas ay ku dartay in dooda Soomaaliya ee ku aadan halka lagu muransan yahay ay salka ku hayso dana ganacsi waxaana ay ku baaqday in Soomaaliya ay ruqsad kala noqoto shirkadaasi maxkamadda ICJ ayaa laga sugayaa go'aanka ugu dambeeya waxaana muuqatay in dawladda Kenya oo ka walaacsan natiijada inay bilowday inay cadaadis saarto dawladda Soomaaliya guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar channelkan sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan warbixinada aynu soo gelino waana mahadsantiin